walaac ayaa laga muujinayaa habka ay ku socoto soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland. xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulkaas ayaa ka mid ah xubnaha walaac ka muujinaya habka la doonayo in loo soo xulo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi uu yeelanayo. isagoo ka warbixinayay kulan ay yeesheen golo ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah murashaxiinta isbedel doonka ah ee u hanqaltaagaya kursiga looga arrimiyo Jubbaland, waxa uu sheegay inay ka digayaan faragelin lagu sameeyo habraaca doorashada. isagoo sheegay xildhibaanka in golaha ay soo dhaweynayaan in odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta Jubbaland loo madax baneeyo soo xulista xildhibaanada, ha yeeshee sida ay hadda wax ku socdaan ay yihiin wixii ay ka digeen. xubno ka tirsan murashaxiinta oo dhawaan warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in qorshaha xulista baarlamaanka Jubbaland uu yahay mid uu wato madaxweynaha hadda xilka ka sii dhamaanaya ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, isla markaana uu doonayo in dib isaga loo doorto. haddaba aan wada dhageysano codka xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland oo arrimahaas ka hadlay. waxaa goluhu isla qaatay hoostana ka xariiqay inaan marna la aqbali karin in 3 xubnood iyo wax la mid ah la keeno oo la soo gudbiyo oo guddiga doorashada loo gudbiyo. oo goluhu ka digayaa in faragelin lagu sameeyo habraaca doorashada. wuxuuna goluhu runtii bogaadinayaa in odayaasha dhaqanka salaadiinta loo madax baneeyo xulitaanka dhaqanka Soomaalida inaan meel lagaga dhicin, beelaha meel lagaga dhicin. wax xal ah oo ku jira 3 in la soo qoro ma jirto. beelshii 2 xubnood leh, labadeeda xubnood inay soo qorato. goluhu wuxuu adkeynayaa iskuna bogaadinayaa in laga wada qayb qaato amniga guud ee Jubbaland. doorashadu ay u dhacdo si nadiif ah oo xalaal ah oo xor ah, in aysan faraha la gelin siyaasado iyo qorshayaal aan sax ahayn, aan la aqbali karin, aan la qaadan karin. doorashada inay hogaamiyaan waxba kama qabno, gudinimadooda waxba kama qabno, laakiin faragelinta qaarkeed ee ah 3 baa la keenayaa, midna waa lagala baxayaa. shacabka Soomaaliyeed ma ogola, salaadiinta Soomaaliyeed ma ogola, beelaha Soomaaliyeed ma ogola, murashaxiintu ma ogola, bulshada reer Jubbaland ma ogola. waxayna noqonaysaa meel ka dhac markii ugu horeysay oo dhaqanka Soomaaliyeed la baabi'iyo ayay horseed ka noqonaysaa haddii hawshaas lagu dhaqaaqo. waa ka digaynaa. Soomaaliya waxa u fayo waa dhaqanka iyo odayaasha iyo ixtiraamka ay mudan yihiin. arrintaas aan bogaadinaynaa. shacabka reer Jubbaland waxaan ugu baaqaynaa inay amnigooda ilaaliyaan, midnimadooda ilaaliyaan, gacmaha isqabsadaan, aan la kala qaybinin. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkan si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada aanu halkan soo gelino. mahadsanidin.